بسم الله الرحمن الرحيم سومالي ودن waa salaamaya meel kasta adduunyada ka joogan waxa way daliyo dibad war degdega oo hadda soo dhacay baa idin haya maanto kale waa maalintii ay joogi jirtay marka geela la dhaco yaa maali jiray baa la oran jiray markaas qof kasta intuu soo kaco baa geela la soo dhicin jiray maanta xaaladda Soomaali galbeed waxay maraysaa wariyaa u tol ah wariyaa u Soomaali ah wariyaa maali jiray bay maraysaa marka war degdega nin haya maanta waa maalintii ninka ragga iyo doqonka kala ogaan jiray waa maalintii ninka lagu baxsan jiray waa maalinta howshada waxa weeye iyo qofka xiniyaha la kala ogaan jiray war degdega warqada u jeedaan warqada aad arkaysaan waa kala bixin doonaa warqada arkaysaan waxay ka soo baxday waa warqad furan odayaasha ugaadeen Soomaali galbeed ismadii soo jireenka ahaa jifi walba leh iyo dadka Soomaaliyeed kale kula nool Soomaali galbeed ama dhulkan inagu maxaa ku raada u naqaan Soomaali galbeed gacanta cadawga Itoobiya ku jira baa warqada soo saaray waa galkii sare weeye waa kala furi doona hadii la idin ka dhigo warqada iyaga soo saaray warqada warqad furan weeye odayaashu warqada marka akhridaan ama aan halka idin ka sharaxo xog badan oo idin ka daahsooneyd ba maarta ka dhuuxaysa waxaan ka codsanayaa warqada odayaashu soo saareen oo warqada furan oo Soomaali ku socota oo qaramada midoobay ku socota oo midowga Afrika ku socota oo jaamacadda Carabta ku socota oo beesha caalamka Mareykan midowga Yurub cid kasto oo arrimaha geeska Afrika gadanaysa ku socota khaasatan ummadda Soomaaliyeed si gaar ah u socota waxaan ka codsanayaa odayaasha warqadooda si ay meel kasta u gaarto walaalayaalow hadii tol leeyahay hadii xigta leeyahay hadii Soomaali leeyahay hadii gacal iyo xigaal leeyahay warqada hala sheer garay warqada xogteeda ay siinaya odayaashu waxay dhaheen warqadaasi inay gaarto Soomaali gaari weydo baa noo daran waxa noo muhiimsan marka hore in Soomaali u tagtaa noo muhiimsan Soomaali aniga waxa weey halka la ii soo diray halkan ka akhriya si sheer gareeya nacala sheedan ku yar warqada la sheer gareeyo warqadaasi waxay ka timi odayaashii Soomaali galbeed ba ka timi ugaadeen hormuudka iyo dad badan ugaadeen ku xamjimooda 80% dhulka Soomaali galbeed ama 90 ugaadeen baa degan iyagana majority-ka dadka kale halka la degan dad Soomaaliyeed weeye waa la og yahay gobol kastana Soomaalidu oo kala badan tahay meel aan anigu laan dheera ka ahay waa jirtaa Soomaaliya meel aan laan gaab ka ahayna waa jirtaa nin walba tuuladiisu laan dheera ka yahay ugaadeen halka Ilaahay iyagu ku beeray Ilaahay iyagu halka u badiyay warqada wayni akhri doona horta halka ay dhiga intaan furin si sheer gareeya wallahi 200 sheer ilaa ay ku dhacdo afka furan sheer gareeya ardaydeedii daacadda ahayd waayada waa idin laahay hal sheer gareeyo odayaasha Soomaali galbeed warqadaasi soo saareen waa warqad furan waa bayaan waxa ku socota qaramada midoobay iyo ururadii kale taan ka sheegayay iyo ummadda Soomaaliyeed ilaa 10 safaarood ba hadda la geeyay ilaa 20 kale inaan geeyno baa noo qorshe ah hadii ka dhigo wixii aan email ugu diri karno iyo wixii aan posto ugu geyn karno iyo waxaan gacanta maarta si toos uga saari karnaba waa geyn doonaa warqadaasi waxay ka hadlaysaa odayaashu waxay si toogan oo markii hore maxaa ku dhahday dadku aysan faahfaahin badan u hayn ay uga hadleen xaaladda gobolka xaaladda ogaadeeniya dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya haysato odayaashu horta waxay yiraahdeen markii hore anagu waxaan moodeynay inaanu Itoobiya dad dalka qayb ka ah wax ka dhistay wax ku leh dad Itoobiyaan inaan nahay oo dastuurka meesha u yaala oo dadkii wax ka qortay wax ka ansixiyay inaan nahay waxa weeye wixii nasiibkoodu ka siiyana dastuurka ka sugay laakiin waxay dhaheen waxa noo soo baxday inaanu nahay dad Soomaaliyeed oo dalkaas Soomaaliyeed ay ku nool yihiin uu yahay dal gumaysi ku jira oo under occupation waxa Englishka lagu yiraahdo gacan cadow ku jira oo dalkaas iyo dadka halka ku nool aan lagu la macaamilayn loogu dhaqayn dastuurka Itoobiya u yaala ee ah dad maxaa ku raadaya lagu la dhaqmayo xeer military oo gaar ama gobolkaas inuu ku jiro waxa la yiraahdo martial law xaalad degdeg ah oo horumarin laga ogolayn oo wax kale laga ogolayn oo inuu caga dhigtaba laga ogolayn oo maxaa ku raadaya sidii dad jiraba looga dhaqmay sida loola dhaqmo shucuubta kale ee Itoobiyaanka ah ee Tigreega leh ee Amxaarada leh oo Oromada leh saasay dhaheen Oromo hadda Tigreey intuu meesha haystay waa la leen jiray waxa weeye dulmi badan bay tusanayeen laakiin waxyaabaha Soomaali galbeed ku dhacay dibta joogtada ay qabaan ay koow ka tahay ihaanada dawlad kasta markay 2 sano joogto oo ay dalka horumarkiisa bilowdo in maarta xiidada loo saaro in madaxdooda la xiro iyadoo la doonayo in laga dhigo dibiga qowrac weyshu ha kuwaana qaadatee marka
waxa weeye dadkaas waxay yiraahdeen ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanu nahay dad gumaysi ku jira dadkii horay hadal hadeen nooga soo tageen Etoobiyada cusub baa wax ka nahay dastuurka Etoobiyada cusub baa wax ka qoranay halkaas aanu joogeynaa dadkaas iyo dalkaabaan wax la leenahay waxay yiraahdeen been waxa la baaciyo been baa u gaabisay bay wixii been bay noqotay waxaanu noqonay bay dhaheen dad gumaysi ku jira dad maxaan ku raadaa xoog lagu haysto dal iyo dad dastuurka Etoobiya u yaala aan lagu dhaqayn oo loo eegayn oo qodobadiisa wax looga soo saaraynay waxaanu noqonay bay dhaheen dad xeer military lagu dhaqo kii iswaala la xirayo kii madaxa taaga xabad lagu dhufanayo kii maxaa ku raadayay raganimo la bado xiniyaha laga saarayo kii dawladii saanqa maxaa ku raadayay markay istiraado hore u kacba waxa weeye lugaa la jiidayo la afgambiyo dad sidii la rabo laga yeelayo taariikhda kama dhicin Etoobiya maamul goboleedyada kale ee jira madaxdooda in la xiro halka Soomaali galbeed ay ka tahay caado ninkuba hadii madaxweyne uu noqdo xarag buu ku dameynaya waa wax caado ah madaxweyne Soomaali galbeed Soomaali oo aan la xirin male sababtoo xaaladda gobolka lagu la dhaqmaya waa xaalad bini'aadantinimada ka baxsan waa xeer military weeye xeerkaas qaba qofka marka laga muraad fusho marka dantii laga gaaro marka la arko inuu danta dalkiisa uu ku mashquulsan yahay in maartay waxa weeye lugaha la siibo la afgambiyo marka odayaas waxay dhaheen ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa warqadda Faransiiska ku qoran waxay dhaheen ummadda Soomaaliyeed waxaan ku sheegaynaa war gumaysi baan ku jirnaa war Etoobiya gumaysi baan ugu xoog bay ugu haysataa war dastuurka meesha u yaala nama khuseeyo war nala kuma dhaqo war sida shucuubta kale Etoobiyaanka ee Amxaarada leh ee Oromada leh ee Tigreega leh ee Dhabuugga leh annaga nolol macaamilo waxaan loo arkaa dad xoog lagu haysto sida maxaan ku raadaa reer Falastiin xoog loogu haysto oo Koonfur Afrika xoog loogu haystay si lamida ba xoog loogu haysta ummadda Soomaaliyeed taa ku baraarugsanaato yey naga seexan baa warqadda ku qoran hana xaaladeedana si dhow hawlo socoto waxa weeye iyagaana noo maqal nin kasta ninkiisa oo cila baa warqadda ku qoran annaga Soomaali baa noo dada taa intaas aan uga gudbaya sidoo kale waxay sheegeen oo warqadda tan furan ay eed balaaran kala dul dhaceen ra'iis si sheer gareeya nacala shitaanka ku yaaleen ma afkayga haysana sheer gareeya waxay cambaareen kala dul dhaceen oo khaa'in ku tilmaameen oo dibindaabiyo miiran ay sheegeen inuu yahay ra'iisul wasaaraha hadda jooga ee Abiy waxay dhaheen ninkaasi waa afku malable waxa weeye hoostana waa ka abeeso waxay yiraahdeen markuu jigjiga noogu yimi wuxuu noo sheegay in Etoobiya cusub la sameeyay in wixii hore laga baxay in dalku waxa weeye iscafis ka dhacay in maxaan ku raadayay laba caliyo dama ay sheegeen qolo kastana xukunkeeda daaqilka loo madax banaanaynayo waxay sheegeen odayaasha warqadooda ku xusan inay ra'iisul wasaaruhu uu afur ugu sameeyay Addis Ababa afurka markuu u sameeyay inuu u sheegay dalka inuu ka jiro uu galiyay 6 bilood cafisa in Soomaalida iyo Oromada wixii horay dib u kala gaartay la cafiyay oo waxba laga soo qaadeen xalay dhalo laga noqonayo ummadda Soomaaliyeed iyo Oromada iyo shucuubta kale ee Etoobiya ku nool ay gacmaha isu qabsadaan sidii dalka loo horumarin lahaa midnimadiisa loo dooni lahaa wixii khilaafa iyo wixii cadaalad darro ay sababayeen in jabhada la sameesto oo dalka qolo gaar maxaan ku raadayay lagu naasnuujiyo qolona banaanka la dhigo in waayaha laga gudbay in buuq cusub la furto odayaasha sheegeen odayaashu waxay sheegeen markay jigjiga ku soo noqdeen inuu Abiy waxa weeye dabar jabiyay inuu dawladoodii majaxaabiyay odayaashu sidii halka warqadooda ku cad waxay sheegeen inaysan waxba ka qabin in maamulka iyo madaxda meesha joogta la bedelo laakiin waxay doonayeen inay ahayd in nidaamka u jira ee liyu booliska lahaa ee maxaan ku raadayay dawlad ahna qaadka lahayd ee muddada dhan ay ku soo tabcayeen oo ku soo tiir beeleen taa in la sii xoojiyo nidaamku halkiisa uga sii jira kaliya hadii wax la bedelayo madaxda la bedelo ee nidaamka aan nidaam kale lagu bedelin waxay sheegeen odayaashu in Abiy dabar jabiyay inuu military ku soo dalbaday inuu nidaamkii dabada u rogay inuu keensaday maxaan ku raadayay military inuu maxaan ku raadayay wiilal wakiil ka ah oo aan dadka metelin oo xukun toos ah oo maxaan ku raadayay Addis Ababa hoostagaya inuu dusha ka soo saaray inuu madaxdooda xirxiray inay taasina ahayd mid aysan isku ogeyn inay taasi tahay waxa weeye wacad fur wixii lagu soo ballamay meel ka baxsan waxay odayaasha halka ku qirayaan Cabdi Maxamuud Cumar waxyaabaha lagu haysto ee sida la sheegayo afartii qof ee jigjiga ku dhintay iyo kaniisadii halka lagu gubay waxay sheegayaan odayaashu inay godob inta ka badan Etoobiya ka tirsanayaan ay ka mid tahay in Oromadu maalin kasta soo disho 200 oo Soomaaliya
ay ka mid tahay in dhulkoodii la boobayo oo jigjiga hadda maxaan ku dhahdaa kaabiga loo saaran yahay lana doonayo in la qaato waxay sheegeen in xaaladda maxaan ku dhahdaa ay tahay meel khatar ay marayso in boob badan ku socdo in khayraadkoodii loo soo dhigtay in dhulkoodii iyo waxoodii magaalooyinkoodii xoog lagu qaadanayo waxay sheegeen odayaasha oo warqadooda ku cad oo ku xusan warqada furan ee beesha caalamka iyo safaarado badan ba u direen ummadda Soomaaliyeed kula hadlayeen Ethiopia inay doonayso inay dadka halka ku nool waxna layso waxna barakiciso ay doonayaan halka in Oromo lagu beero ujeedka rasmiga ah ee loo socdaana uu ka yahay dadka Soomaaliyeed halka degan waxay sheegeen Ethiopia inaysan kala jeclayn Oromo inaysan kala jeclayn inay doonayso dadka inay ka barakiciso oo dhulkooda ay qaadato oo Oromadu waxay yiraahdeen dhulku uu ka yaryahay odayaashu say aaminsan yihiin warqadooda ku xusan Oromadu muddo badan waxay ku taamaysay inay hesho dhul cusub bacdama dhulka Soomaalidu uu kan Oromada leeyahay laakiin ay ku nool yihiin dad 10 milyan halka Oromada ay 40 milyan uga nool yihiin marka Oromadu muddo dheer waxay sheegeen inay ku taamaysay inay dhul hesho maantana ay heleen isla heleen qorshahoodii iyo hoggaanka Ethiopia inuu gacanta u galay labadiiba inay isla heleen ay hadda u soo jeensadeen maxaan ku dhahay wajigii ahaa sidii qorshahooda u fulin lahaayeen oo dhulka Soomaaliyeed u qaadan lahaayeen waxay sheegeen hadii odayaasha warqadooda sida ku xusan hadii Ethiopia cadaalad la sheegaya ay ka dhab tahay inay ahayd in loo soo qabto dadka madaxda ah ee Oromiya ka taliya ee maalin kasta dadka Oromada ah intay soo hubeeyaan oo soo abaabulaan u soo dira dadka Soomaaliyeed si sheergaray nacala shidan ku yaal 500 kun war gaar laanay sheergaray nacala shidan ku yaal sheergaray adeerya fariinta cid kasta ha gaarto sheergaray nacala waxaatin ku yaal sheergaray marka waxay yiraahdeen Oromo waxay yiraahdeen odayaashu hadii la rabo cadaalad hadii la rabo waxay ahayd in laga bilaabo dadka Oromada ah ee raadkoodu qoyan yahay ee wali xilka haya ee maalin kasta dadka iyaga laynaya ee tuulooyinka iyaga intay dadka ka barakiciyaan dad cusub ku beeraya waxay sheegeen odayaashu oo warqadooda ku xusan in Ethiopia waxa way Cabdi Maxamuud Cumar waxa lagu haystaa ay tahay baadil aan lagu haysan khaladaadkii uu ka geystay gobolka ee lagu haysto waxyaabo iska baadil ah oo waxa way misqaal dartiya waxay sheegeen odayaashu dadkii Oromada ahaa ee falalka argagixis ku eedeysnaa ee qaraxyada wadanka ka geystay ama amxaarada lahaa in abay u xabsiyada ka soo daayay isagoo u cuskanaya in 6 bilood is cafis la sameeyay waxay odayadu kaga cawdeen oo ay xuseen in ninkii iyaga xilka u hayay karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed huwanaa ee hoggaanka iyo madaxda u ahaa in si Soomaali loo bahdilo in jeelka la dhigay ee aysan ka ahayn in Soomaali cadaalad loo doonayo odayaashu waxay carabka ku adkeeyeen hadii cadaalad iyo wanaag Soomaali la doonayo la jeclaystay inay ahayd in Oromada laynaysa ee dhulkoodii ku soo fidaysa ee qaadanaysa ee ulaha boocda ah ilaa goday ugu kutubaysa in dadka in laga qabto inay ahayd oo xukun cadaali ah iyo maxkamadda loo horgeeyo marka waxa weeye odayaashu waxay yiraahdeen Cabdi Maxamed Cumar waxa lagu haystaa waa baadil annaguna waxaan u tabanayno iyo waxaan u haysano male sidoo kale odayaashu waxay caalamka u sheegeen abay inuu ilaa Eritrea si istaagay inuu rabo inuu gobolka sidoo sheegayo inuu maxaan ku dhahdaa rabo inuu maxaan ku dhahdaa been ka gado waxa isagoo wadankii hoosta ka hulcinaya Ethiopiaanka isku laayay Soomaalidii gumaaday dhulkoodii ka qaatay waxaas inay tahay bay dhaheen wax been abuura warqada waxa ku xusan odayaashu waxay sheegeen abay wuxuu sida u yeelayaa inuu u tartamo bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize bay ka tahay laakiin waxay yiraahdeen kafaaran ku galnay inaanu qaadan abay dhaarbe ka mareen sababtoo ah dadkii Soomaaliyeed buu laynaya maalin kasta iyagii buu laynaya Ethiopia iyo TV-yada beenta Eritrea tagay iyo TV-yada boors ku qarshway dadkii Soomaaliyeed buu laynaya nin gurigiisii gubay oo dadkii Soomaaliyeed maxaan ku raahdaa Oromo wareegsaday oo qabyaaladii halka ka buuxdo Peace Nobel Peace Prize ma qaadan karo Mandela kalena ma noqon karo abay odayaashu saas u sheegeen waxa kale oo odayaashu sheegeen shidaalka iyaga lama soo bixi karo bay dhaheen lama soo bixi karo abay wuxuu rabaa 5% inuu nasiyo 5 waliba waxaan ku yiraahdaa la musuq maasuqay oo 2% wax ka yar ay naga soo gaarayso waxay odayaashu ka digeen waxay u digeen dawladaha shay waxay u digeen shaqaashi waxay sheegeen kuwa waxay la hadleen kuwa kuma mashquulsan inay si sheergareeyeen nacala shitaanka ku yaala sheergareey adeer sheergareey khayr Allah in si sheergareey odayaasha farintooda guri kasto Soomaaliyeed inay gaartaan in ka raba nacala shitaanka ku yaala arkaga meesha
wax kale haddii qaban karin oo mudaharaad nagala qayb geli karin subaxiisaan u jirmaado maalin kasta meel baan taaganahay ama safaarad baan u socda ama Facebook baan hor taaganahay ama telefoon baan dhigta ku haya waa daalo waa xeeqo ilaahay googe ogaadeenna waa la socotaan xataa gabar kama qabo xataa ayay ima gasho xataa reer abti lama yihi waxa Soomaalinimo ay wada wax kale haddii tari karin noo sheer gareey fariinta gaarsiiya dadka Soomaaliyeed jaaniska haya ee doonaya inay wax nala qabtaan gaarsiiya nacala shitaankiina ku yaal si sheer gareey intaas aan ka codsanayna kun sheer marka u yartaa ku dhacdo bahasha nacala shitaankiina ku yaal ummadda Soomaaliyeed in loo kaco oo waxa weey maanta codsanayaan oo u baahan yihiin marka odayaashu waxay sheegeen waxay yiraahdeen shidaalkayga lama soo saari karo abay inuu yiraahdo ona lafna waa soo xire gelinaya maxaan ku dhahday dadkii Soomaalidu meesha joogeen waa xasuuqaya waxba kama jiraan ona laf odayaashu baaq bay u direen waxay dhaheen war kuwii meesha joogay baa meesha lagu gumaaday ona laf wax idin wajiyo idin soo socdo male dadka Cabdi Maxamed Cumar iyo xukunka iyaga ka tirsanaa ee dastuurka u yaala wax ka qortay ee u shaqeeyay la shaqeeysanay xabsiyada dhigay ona laf waa loo ciil qabaa inta waxa la rabaa in lagu meel gaara la doonaya warqada cad odayaashu soo qoreen saasa ku qoran marka abay wixiisu waa waxba kama jiraan ona lafna waa soo xire gelinaya ugaadeenkii meesha joogeen waa waxa weey waa xaqaya waxba kama jiraan ona laf wuxuu yiri hubka dhiga waa beenti hubka iska dhiginina odayaashu saas ku baaqan ona laf iyo hubka dhigin oromada hubka dhigaysa ay ku dayeen oromadu markay hubka dhigaan militarigii bay qabsadeen dalkay haystaan hubba inay qaataan uma baahna Tigreegu markuu milis joogay halkay ka joogeen bay maanta ka joogan Ethiopia iyaga waxay ka yihiin maanta iyaga Arabiga Ethiopia iyaga abayba milis oo kale u noqday marka odayaashu waxay ku baaqeen in aan ona laf aysan hubka dhigin sabab hubka u dhigtaa ma taalo gobolkii waa gubanaya shidaalkooda loo soo socdaa khayraadkooda loo soo socdaa isagii baa la rabaa in la maartay la dhuuqo la gurto saasay odayaashu ku baaqeen odayaashu waxay ku goodiyeen oo digniin adag abay ugu sheegeen haddii faragelinta uu gobolka ku wado iyo sida xun ee uu Soomaalida ula macaamilayo uu ka waantoobi waayo oo ninka uu xirtay iyo madaxa kaleeta ee reer kasta leh ee dadka u shaqeynayay ah uu sii deyn waayo inay duurka wada gali doonaan inay dhamaantood ona laf wada noqon doonaan inay jabhado cusub sameyn doonaan inaan hal litir oo petrol ah gobolka laga soo saari doonin sidaas odayaashu wacd iyo dhaar ku mareen warqada cad bay ku xusantahay warqada cad mar dhow ay kala furi doonaan warqada cad bay ku xusantahay si sheer garay nacala shtaankiina ku yaal warqada golaha amaanka ku socota qaramada midoobay bay ku socota golaha loo dhanyahay jaamacadda carabta ku socota midowga Afrika ku socota midowga Yurub ku socota igad bay ku socota Eritrea ku socota Soomaaliya ku socota dal kasta oo geeska Afrika iyo xaaladiisa daneeyo ku socota isimadii iyo odayaashii dhaqanka ahaa ee soo jireenka ahaa ee ugaadeen iyo Soomaali galbeed baa soo saxiixay konton oday baa ku saxiixan magacyadooda halka ka sheegmayo waxay yiraahdeen in la dilaan ka baqeena ha ku dhawaaqin sida fariinta lagu adkeeyay magacyada halkaas ku xuseeyeen laakiin safaarada marka la geeyo mid walba saxiix baa la socdo oday kasta oo laga soo saxiixay xorriyadda baa la sameeyay iyo waxa kale sheegaya waa been weey Ethiopia waa tii weey waa tii gumeystaha ahayd weey gumeystaha ku xun waliba ahayd weey marka si sheer gareeya baaqa odayaasha si sheer gareeya odayaashu Ethiopia iyo Oromo yey nabad nagaga xisaabtamin inta ay sida bahdilka ah ee wajixumada ah noogula macaamilayso bay dhaheen odayaashu waxay yiraahdeen waxaan ka warsugaynaa wax huburus baan ku jira huburus baan ku jirnaa waa ku qoran huburus isabaab baan ku jirnaa Ethiopia waxa loo qabtay waxa ku ilaa bil gudaheed hadii xaaladda ay ku jirto iyo wajiga ku socoto iyo jihada ku socoto ay uga laaban weeyeen wallahi oo billahi oo tallahi waa dhaar ba ku qoran in Ethiopia ka shaqayn doonto warqada odayaasha soo qoray beesha caalamkana saasa loo sheegay abay waxa kan wada waa been weeye waa khaan weeye Sweden buu wuxuu rabaa inuu si been biladii Nobel Peace Prize uga qaato Eritrea waji uma hayo Soomaali wanaag uma hayo maamul goboleedyada Kismaayo ku shiray isaga ku shirsiinaya Soomaali inuu kala furfuro markasta waxa weeye waxa soo doonaya kaliya wuxuu doonaya oo farmaajo iyo asayaas isugu sawiraya oo maalin Muqdisho u taagan yahay maalin Eritrea u taagan yahay wax kale ma aha Nobel Peace Prize baa u muuqday Oromigii ugu horeeyay ama Afrikaankii labaad ee Nobel Peace Prize qaatay baa ku qafilan noqo waa ay dhalay weeye laakiin abay waxa leenahay Nobel Peace Prize waxa la yiri waxaan ku yiri qofku waxa la yiri jannadiisa haduu rabo nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam hadaa jannada rabtaan lugaha hooyadiina ku jirta ka baara abayow Nobel Peace Prize ka Eritrea ma yaala ka doonayso Muqdisho ma yaalo farmaajo siyaasad fawrga ma yaalo jigjiga Nobel Peace Prize ku yaala Cabdi Maxamed Cumar ina jeelka ka sideyso taasa Nobel Peace Prize ku yaala halkaas ay kaaga dhowdahay lugahaaga Nobel Peace Prize ku yaala markaas
qarka shanaad rabtaa inaa isku qaado Swedish kana safaaradeeda aniga bari Sweden u duulayo geynaya wasaaradooda arrimaha dibadda haddii kalena boostadaan dhigaya waa duubaya anoo boostada soo dhigayaan duubaya rag saraakiilo halka joogaan u direena haddii la ka dhigo Nobel Peace Prize macadkii bixin jiray anaa hor istaagaya oo hortiisa leef ka soo galaya أبي نوبل بيس بريس هو يلا بكات هاي هدي آذن عبدي هدادن معاك على الصومالي البيت وحوي سيدا كل رقم الشكل ده دتك هدادن حرية سين هدادن مدح بنانين هذا هدادن مدح هذا السيد دين وحوي والله بنوبل بيس بريس كات هاي والله بكات هاي حساب خدم بس كله ستي السياسي فرماجر والله بس لصور كود والله بعد نوبل بيس بريس جوهلين أمان يكرد نجار وجهلين يرد قلبي استوستس بقى وجرا قعمها دي كلها يا أديجي بعمل سكدري أنت أرمدينا حسيرة كسر ديسي دتك دلقة ها أو جودان كقبيل أو محاكر على إيه أرجع حسابها ها إثيوبيا ما عارك استقر حنجري يا يو تلس كورة رد قلمية أو أرجع حساب كودا استنا إيرسنا بحسيرة كسر ديسي دتك مدح ها أو دتك الصوماليين وش غيني أو صومالي دورتي يا أو كرامة الصوماليين هو نانا وحرتها إنا هرتيدا كوجي جدا هرتها صومالي هرتيدا كوجي جدو أو كوبه الدشوا هرتها عبد محمود عمر ما أنتي دويتها بس كقرح حسوس هارسي ورمجاري في عم بقولي ومواين وحرتي ومد الصوماليين إنا تستو بارتي دنيا إنا كجدو إنا الصومالي بهد الشيء ويهين تدا جرين إيمانك استسيدي لجرب ولا جاي له دنعي الربنا لوجي دي بارتا odayaas warqada waxay ku xuseen oo tan ugu muhiimsan maamulka hadda cab si shargareey nacalaashtan ku yaal naga shargareey odayaasha fariintooda meel kasta gaarsiiya hawiye ha gaarto daarood ha gaarto dir ha gaarto isaaq ha gaarto ilaa raxan weyn ha u tagto shargareey aad riyaal ummadda Soomaaliyeed oo shargareey nacalaashtan ku yaal shargareey waa idin duceynaya والله شرط أجر بقى إلهي إنك إنه كسكنانية أجر بقى إنه كسكنانية دتك الصوماليات بينوها الجميع يجانوه يليننا ورشينا جبتوه كل شيء ورشينا منو قاعدين بقى أبسمين مية حتى نعلاش تنقيا أي ذي ولقي من نقول مال كلام قديم لقمة أبسم اللي يعني كولقي لقيني نعلاش تنقيا صومالي ما نقول بس دتك أسوح نوم وقتمان هدان لوك إنه الله يلين سيشر كريه هذا هي وحكوا إلي عانت دات الدبل على قبتها لي ما أنت حالة هدان لقبان أو عنوا ولا دابنا ديان دول كالصومالي قلبت هف بين غنيسا ما عند ما استعجسان ورمضة تن صومالي ده معني كسترلين لسه الشنطة بقول سود لسه بقول كسود لسه ميلاد كود يلا طبعا قاري بيقول سود جدية لكينيو ورميين انت كدم غنين ورميين كدم غنين ورمضة انت يلاف كسوق شو له حمر أنا عليه صومالي يمن بيكتمي صومالي وإني عرب كل نقطة ورمضة ما أعرف مياه نعلاش تاكويا ورميين عرب جور ويلك اللي يقول شيء ملح كوصل له إثيوبيان كأرملة مريكا كيمي تويتر كأفر يلا بعتك ساعة عبد محمد عمر يسوي حلك هاي وجوهن جبي حبس باندقية دفور كان كل فنيا محكمة بنسوت هاي وقع كل ديجل هذا توريا وراح عيني من مقطمية نعلاش داقين كويا وحمارك ترمية سي شرقرية نعلاش داقين كويا شرقرية وضياش ورقة ويحكوا حسين مامو كهذا الكيري بيه أو داخلية أو هذا الكيري maamul kaas wuxuu dhaheen oo Mustafa cagab balaaran oo madaxweynaha ka yahay oo in shidaakan maxaa ku raadayay akisham yaa lagu sheegay qolo u yahay ilaahay hadda waa Oromo barbar Oromo weeye ninkaas uu gudoomiyaha ka yahay waxay yiraahdeen maamulkaas waa maamul xukun toos ah dhaheen ma aha dadkaasi dad Cabdi Maxamed Cumar waxay dhaheen oo ku amaanen wax kasta ha xumeeyay nin go'aan lagu ahaa nin talada ka go'do buu ahaa wixii loogu tago nin soo go'aaminayay oo go'aankeeda leh oo ka labaynin oo wuxuu rabo saacada ku dhaqaaqayo kuwa kan waa kuwa adsaba wax looga soo yeerinayo odayaashu waxay dhaheen 5 maalmood baan iridooda taagnayn wax ka dhamaan kara male wax halka u fadhiyo bay dhaheen booliski commissionerki booliska federaalka istaaka u fadhiya markii lala hadlabo isaga eegayaan markii lala hadlabo isaga eegayaan go'aan ma qaadan karaan habeenkii wixii maanta ay kula heshiisay subaxii oo noqonaysa muslimay ku isbedeleen jawhar baa telefoon kula soo hadlaya lama telefoon kula soo hadlaya oromo dhan baa telefoon kula soo hadlaysa oromadii waxay ka noqdeen oromada ogeydeen baa jigjiga maanta waxay ka noqdeen Soomaalida iyaga ku dhex dharbaxa dukaamadii waxa ku yiri oromadii baa cagaha loo tuujiya baa leeyahay cagaha loo dhaqaxta nacala shidaan ku yaal bahdilka goor baa ka bixisa ka kacamaysa nacala shidaan ku yaal iska kiciye heriyada gumeysiga iska kiciye Ethiopia iska kiciye nacala Ethiopia gumeysi ku xuway دشوي جواب أبيو هدا وناكيسو
قبر نيكي كنت كونو يعيدن كي مقدشو كنت كونو قف يقدلي الصومالي كسو دولي أنا محكمة محاكو لها إلهي نوصو دري أو نبات كجرنا أو محاكو لها دكدين لوفر أو إيربوت كينو لوفر أو كانت ضمين هل ويديكي نقشو دولي كورنال عيدا ماذا كميدا هاباهي دادكي حسوقية المقدشة كجيستا كوكا أهي قبركو عيين كسيبا أهي ورما دادكا نوصو قبطو ما أديقو ما محكمة سكاي هرقيسو حتى ما عفزنا dalbato ku cafiinayn nacala sidaan ku yaal anagi ba intaana layseen oo dhulkayagi qaarteen oo dalkayagi ku soo dusheen oo madax banaanideedii maxaa ku raahday caqaladayseen ba ilaa iyo hadda waxa weeye madaxdeedii iyo maataydeedii ki artaanba waxa ku raahday karkaarka weeraadinaysan waxaasi waxayna kala qabta maaha nabadda tan geeska Afrika ka doonaysana saa ku iman meeso oo wallahi odayaashaas warqadaas ku qoray ku iman meeso sida waxa ku imanaysa iyadoo in la wada nool yahay ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanaya war abay khayridiina ma wado quraanka la idin ku sheegay si sheergaray nacala sidaan ku yaal sheergaray quraanka la idin ku sheegay ha aaminina kufaar baa leeyahay quraanka lagu sheegay abay ba aaminaysa abay waa nifiican abay waa nifiican hadii waxa la yiri balan gashaan ida wacala khan miyahay ay waa ku khiyaameynayaan balan kasta la gasho waa jabinayaan nacala sidaan ku yaal ومنافقين وي وكفار وي لا تآمنوا دولك اللي يروي مركز عترا وحرتان إن ترى أبي بساتني أبي بساتني أبي محويه ويلك استاذ كاتم يا نين كان سجود وحوي إلهي أودين سوما ما بسجود به هي ما بلا آمن كلا هرت دين تقبل يحير كقبلنا يا وهو قام سوي محوي دستور كتابي وكل شيء سنة وكان عقل أشوف أو سومالي وحيرين واي أو محاكرة سي شهر قرية وادال شهر قرية ما أنت كبح معي وحى إيجاه اللينا الصومالي وحى اللي يردك وحى ويان درون قفك هل كان بيروح كعكة ميل فقبة وحكعكة قبيل بعيد دلي عبدي كوب بدن بعد كان عيب ولي يقول عبدي مارك ورنا عرقنا إني كان رجع ورجال أبوها سياب براكو كعلين واحد هذا وين اللاي واردين ما حد نفستين سياب ما حد نفستين بالنور شيء واحد نفستين قفك حوالي بدل كرا قفك هو بني آدم خلد وكدع كرا ولا صحي كرا ولا حري كرا ولا عنان كرا لكن عقليات بأبهانته سياب برمحان سيسنة زيرو وحمس سيسنة عبد محمود عمر والله بالله يددك هدا إيرانية بريك مالين أنا آموسن إينيكو أوي يا أركيدونتان أنا آموسن بركي أنا وحي عيلان قبي هدا سيد داي إذنكو قايلين يا وا أنا هذا كهدو يقدر ماريا باركيا أولي عبد محمود عمر كانوها نفي عن بوها ميليتري بعد كده نقدي وحا أركيسان مصطفى عقجر ميوها وحبس كجرا أركيسان وحا أركيسان أحمد شدو نينا كان أورامدا أو لامو بدلي بأركيسان أما الدلعسيو سبالة دلود بتاع أركيسان مركز دنت اللي قال لي هي وقاعدينه اسكجرو صومالي واسكجرو دولكو أورامسيو نكا وحا أركيسان مالها لو بدش أركيسان وحا موقضة وحا ما تجوج قفك عن كرن وحا صوص على ما قرت بعد بري وحا موقضة هدي لهاي نفتي نود دينيو أبي وحا ليري بيا عن هرتود أركو هوبدودا ولا مسكو بيا أركيس هرتود إنه حيين هوبدودا وحا كسكتا وقرتارو أبي واركا إنه هبار قبل الشيشو دري هاي ابتلام مدو إنه يهي نوعي دجال عور وحا أكل إنه يهي مقطع أرنكا إسكا أوغادا وخائن لشيوي واتو انتو جيجيجتكي عبد محمد عمر بلان تلقلي أو إسكو سو صوري oo laama ka haystay oo yiri way safinay wixii maxaa ku dhahdaa Soomaali iyo Oromo ku kala dhintay waxa weeye xalay dhalay baan ka noqonaynaa idinkuna ka noqdo Soomaalidii markay aamintay oo isdhigatay oo cabdi maxaa ku dhahdaa uu qoriga candada ka furtay oo iska seexday waatuu habeen madow ku soo guday oo adduunkii oo dhan baabiyay kaniisadda uu leeyahay waa la gubay sababtiisa ku gubatay isaga gubay Soomaali ma gubin horay bay ugu taalay Soomaali rabitaankooda ku taalay hadii ku tala gala horay ugu bilhay عبدي سوى حلك عيابي ماشي كان سنيدو تالي يا وعادي أحد أبي سببتي سالوجبي السجع سوى عبد محمد عمر محاكو على أي مشين وجليه أو وحنا محكمة وصار له وحكم أوه له وجبي سي شرقية نعلى شتاكو يا شرقية شرقية نعلى شتاكو يا شرقية والله بالله واحد خسر وحكويري مساكي يلا بعتم بعد نكاس انتو حرنا طبعا نحن بيجي عبد tobanina qeylay iga dhacday saan meel kasta u taagnaa oo u orday oo u xilsanay oo xabibsanay laba maalmood Trump telefonkiisa doonay waa waay meel aan u gelin male
تويتر كان توين مسج او درو ايش جواب واي waxaan rabaa cabdi maxamed cumar xarigiisa iyo xaqdarrada lagu haysto iyo dadka Soomaaliyeed galbeed sida loo xasuuqayo iyo xaqdarrada dadka lagu hayo iyo sida gumaysigu u haysto waxaan rabaa guri kasta gaaliyo muslim ba inaan gaarsiiyaa rabaa waxa ku yiri bini aadan oo dhan inay u kacaan baan doonaya ninka waxa lagu haystaa waa wax kama jiraan weey Soomaali baa ninka dambi buu galay kuwa badan ay soo caayay dambi buu galay gacan ku dhiig la u hiilinaysa war dambigu yuu ka galay dambiga soo adiga miyuu ka galay dambi ha xukumo adigu gacanta lagu soo galay adiga maxay Oromo u jijiidanaysaa anagu ma anaga cabdi dambi ma lahayn ma anaga cabdi bini aadan weeye nin xukun hayu aha anigayga oo cidna wixii dhiiban oo cidna xukumin oo gurigayga iyo waxaan ku ilaalay ciyaalkayga iska dhex jooga ba khaladaad leh oo waxaan ku ilaalay wanaag leh oo xumaan leh oo wax kasta leh bal qiyaas qof xukun haya isagu hay bini aadan maxaa xukun haya waxa la socota waqtiga Umar bin Abi Talib inuu gaajo ku seexday oo yiri waxa ka baqaya ya gabadha gaajada habarta gaajada ku seexdo arda Sham joogta dambigeeda anaa cabdi maxamed cumar marka dambiye badan oo gobolka ka dhacay waa leeyahay laakiin kuwii ka dambiyada badnaa kuwii isaga soo doortay kuwii isaga dirsanay kuwii isaga maxaa ku adeegsanay kuwii shaatiga u soo xiray kuwii kabaha ka waaweyn u soo gali kuwaasi miye laade gabre me lamo me abay me jawar me Oromo meeday tagre me amxara meeday digsiile me mingiste me dadkaas mid kamida maxkamadda ma soo deyn iska daa in mid cusub maxkamad la keenay war kuwii xabsiyada iyo dilalka lagu xukumay iyo 20 sano ba abay waxa weeye ka sii daayay maxaan ku raadayay jeelash ka sii daayay bedelkoodana cabdi maxamed cumar buugay bal waxa aqliyad la qaadan karo miyay cabdi maxamed cumar nin khalda waxa weeye bini aadan u ahaa ma khaldan yahay ma khaldana hadda waxa ma bataalaba ma la dilaa ma la daaya ma la maxkamadeeya ma la xukuma ma la iska cafiya ma maxaan ku ma kalarka lagu dhigo waxa ma taalo ninkii gacanteena ku soo noqdo markaasaan ka tashanayna wax iska weydiinayna hadeenu maxkamad geesiyo lahayn hadeenu cafin lahayn hadeenu maxaan ku dhahday u dambi lahaa haduu cilka saliim noqon lahaa qofku adduunka hadda dambiile eedaysana la dhaha qofku wuxuu dambiile noqdaa marka xukun ku dhaco oo dacwadiisa la qaado oo marxaantiya loo helo oo dambiyada lagu soo eedeeyay lagu helo oo xukun ku dhaco markaas dambiile noqda inta ka horeysa waa eedaysana cabdi maxamed cumar waa eedaysana hadda cidii wax ka tirsanaysa ninka dambiile maahay waa eedaysana inagu inoo iman lahaa waa wareysan lahayn maalin dhaweyto wuu warramay intaan la qaban wara wixii la xumeynayay tagreeba xumeynayay iyaga military meesha keensaday iyaga wax leynayay iyaga maxaan ku raadayay amarka xataa waa la socotay inuu yiri hoggaanka nabadgelyada iyo cadaaladda madaxweyne ka soo dhigan iyaga amrinay waxa oo dhan waa la socotay marka cabdi soo inuu gacanteena ku soo noqdo soo inuu wareysano soo inuu inoo warramo soo inuu gacanteena ku soo noqdo Soomaa ninkii Oromo haystaba ninkii maxaa ku nool cabdi maxamed cumar dhimay baa xigta ديكر يدخل باكو دفتا حتى انت دلان بوحي اوران دونان اسكسو دنتي ديكر باكو دفتي لكن اورما waxaan u sheegaya wallahi ma anta abdi baxo wallahi ma anta abdi baxo wallahi been geeska Afrika ugu wada noolaaneen oo billahi oday Soomaaliyeed baa ya dadka Soomaaliyeed ugu afka dheer oo meel kasta ku gaariyaan wallahi ma anta abdi maxamuud umar dishaan oo u go'o ya wallahi baan layni ka harayn iyo billahi iyo tollah wallahi been geeska nabad ugu wada noolaaneen والله بعدنا أبي وملح كسي أهاني والله بيسن إثيوبيا كود يجري يا والله بان إثيوبيا وجرين بقوي والله بعدنا شدال كيجا سن الجليا يسي شرف لوجود رندورين بقوي سيدا نكا ما علمت حبسي أكا محاكل أكوه زتيبا حال دين وشيك الفغانيستا يا مالين كستا ونكا وأوتريا كو لابو صدح بلبو هاد كجرا مالين كستا مالين بمالين تقدم مثلا دات سيكل فوق بينها بلكم مجرى لابو سبعو كجرا مالين صدح سبعو كجرا والله بان أرينو كوكا شوفين والله بان محاكل هاد ميل دم ووضا نولان إنو نبد قوضا جوغين باقوي انتا نكا هاي ستان انتا نكا وحان كولا هذا ايه بهد ليسان انتا جرد ليسان نعلا شتان كده كويالي وضي الصوماليات باهي أورمو إثيوبيا نوش داية نكا وايد اللي داية سي داية دنبي هدو قلي ور انتي أورم إثيوبيانا دنبي قلي وريا كوي دادك قرحيي او وحان كولا هذا ادي سواد دحي القرحية كجيسان يا حبسيدا كسوديس أبيو او قبيل iyo oromanimo uga soo deysay bastri iyo xun Soomaaligi dawladda Itoobiya u shaqeynayay oo idinka amarkiina ku shaqeynayay oo aad soo dirsateen ba maanta waxa rabtaan inaad tiraadaan waxa way afar qof naga dilay adigu og maalin kasta oromayna 200 qof naga disho Soomaalida waxaan leeyahay war cabdi maxamuud cumar waxyaabaha ka tirsanaysan inta halka iska dhigtaan nacala shitaanku ku yaala ishiin ha aragto
labada tan boqol qof oo maalin kasta ormada soo dilayso war jigjiga in loo soo socdo kaabigeeda la fadhiyo taa arka nacala shidaanka ku yaal war waxaad aragtaan waxa kula degmooyinkii la ka qaaday tuluguleed la qaaday meeye baabile la qaaday jigjiga la maraya xagee loo socdaa muqdisho hargeysa loo socdaa orinta miin garan karin nacala shidan ku yaal kakaca meesha waynu ku xidhnay ummad qalbi adag baatiin waxaan ku iri waxa wax dareemaysan goor la hogo lo baay ba wax dareemaysan warqada odayaasha soo qoran ila faafiya si sheer gareey warqada ummadda Soomaaliyeed odayaashii Soomaali galbeed ee xorta ahaa ee soo jireenka ahaa ee gobolka taladiisu ka gooday iyagoo konton halkaas ku saxay Ethiopia waxay dhigeen gumaysi weyn ugu jirtaa walaalaan Soomaali ahayn malihin ummadda Soomaaliyeed ha noo soo gurmato haddaysan soo gaari karin ha naga war hayso ya annaga iyo Ethiopia annaga meel daran iskala dhici doona waana iska kicinayna waa la doogayaan la dacaron dadkaas goor Ethiopia iska kicin doona dadka daba dhilifka oo hadda Ethiopia u shaqeynaya oo abay hadalka macaan ku khalday iyo qaarkood cuqdada iyo xasadka qaba ee Cabdi Maxamed Cumar iska nacayo aan arag dadkaas waa laga guuleysan doonaa xabsigana nin baa loo sameystay Cabdi ku waari maayo hadii Ilaahay cimriga u daayo waa ogeydeen qalbi dhagax baa ogeydeen muxuu ku jiray xabsiga wax yar buu ku jiray maxaa uga dhimay inuu wax uga kordhan maayo waxba uga ma dhicin oromona Cabdi Maxamed Cumar maanta shalay sidii dadkii shalay diidanaaba maanta jecel ya Soomaalinimo ku jeclaaday dibta u geysanaysan ka damqaday ya waa arkaysan hooyadii oo 9 jir halka ka biroorinaysi walaal wiilkayga Soomaaliyeed war hooyadaas miyaan hooyo Soomaaliyeed ahayn war hooyada iyo hooyada maxay kala duwan nacala shidaanka ku yaal islaan Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed in laga oohiyo war Soomaalidu boqol qof iskaga dhiman jirtay hooyo wiilkeedii Cabdi Maxamed Cumar adiga waxa weeye nin xoog loo madaxweyne abu ku ah iyada waa hooyo naaska u soo dhigtay miyay saxan kartaa war islaanta ma arkaysan miya war dhibteedu inima taaban miya war ummadam qanaysan miya nacala shidaanka ku yaal waa hooyo wey Cabdi Maxamed Cumar wiilkeedii buu ahaa 9 bilood caloosh ku soo sitay naaskay u soo dhigtay wuxuu iyo wax kale maxay iyada ku ogtahay waa hooyo wiilkaagii baa amxaara qabsatay wiilkaagii baa maxkamadda soo taagay wiilkaagii baa dil lagu xukumi rabaa wiilkaagii baa la dilaya ma seexato ma joogi karto waa hooyo wey waa adiga ama anigoo soo taariibayo hooyadeen lagu yiri magafa wiilkaagii haysta soo ma baroorateen soo Soomaaliyeed ma tiraadeen war wiilka ila soo badbaadiye soo saaf tiraadeen hooyadaasi taa oo kale wey hooyo waa hooyo wey marka ka kaca meesha ninka hooyada u gurmada Cabdi Maxamed Cumar qofkii nabcaayo war hooyada Soomaaliyeed hadashay madaxeed ugu gurmo war hooyada Soomaaliyeed ooyeysa war ilinta ka tira war waxa ninka lagu haystaa baadil weeye free Cabdi Maxamed Cumar si sheer gareeya adeer si sheer gareeya waa daal sheer gareeya fariintaasi guri kasto Soomaaliyeed odayaasha warqadood cid kasta ha gaarto cid kasta ha u tagto safaaradiina anaga geynay international community-gana waxaan u sheegaynaa waxa weeye warqadaas gaar doonta qaramada midoobay golaha Security Council-ka inay arintaas soo farageliyaan dawladaha maxaa kula reer galbeedka waxaan u sheegaynaa halka dabba fulkaana ka qarxi doona fulkaane reer galbeedow interestigiinu waa burburaya fulkaane abay wuxuu wado waxa weeye waa mar dhow fulkaana meesha ka qarxaya marka intaan fulkaanu qarxin arinta waxa la yiri belo daba la qabta male af la qabtay leedahay afka hadda arinta hal la qabto hal laga hawl galo gobolka Soomaalida ay Ethiopia sidii arinta loo maslaxadeyn lahaa sidii ninka xiran iyo dadka madaxda la xiran sida xaq darrada ku xiran sidii loo sideyn lahaa hal laga shaqeeyo saasaan codsanaynaa beesha caalamka ka codsanaynaa beesha caalamka hadii halka fulkaan ka qarxo oo nabadgelyo ka dilaacdo shidaalna ka helmeysaan faa'iido kalena ka helmeysaan dee gobol adduunka kamid oo ololaya buu noqonaya marka arinta halaga hortago saasaan ka codsanaynaa beesha caalamka saasaan ka codsanaynaa onolefna waxaan u sheegaynaa onolefey meesha ku socotaan oo hub kale idin ka dhigayo waa meesha ninkii u shaqeynayay lagu xiray weey waa meesha dawladii ka talinaysay markii dantii la lahaa laga gaaray oo Oromo ay aragtay dawladdaas inaysan dantoodii wadeen mid Soomaaliyeed u soo jeesatay oo markay tiri shidaalkii 95 Oromo qaadanaysa 5 waxa qaadanaysa Soomaali wakaal xiray idinkana
ona la fiyo jabhadii oromada hubka laga dhigaya oromo hub dhigi mayso oromo military bay haysataa iyada dalka maamulata bayloodiya hadda ruushka u dirsadeen baa layiri oo isoo tababaranayaan diyaarado bay ruushka kasoo gadanayaan waxaan ku yiraahdaaye iyagii waxoodii hubkoodii waa loo sharciyeynaya idinka kiina la idinka qaadaya sacabooli baa soo baxaysa marka waxaan idinka codsanaynaa war ha ku degdeginina hubka aad dhiibaysaan war cabdi maxamed cumar kuwa u dooda ininku noqda war nala shaqeeya anaguba onolefaan ahayn oo dadkii taageersanaa baan ahayn laakiin sida wax ku wadan baan wax loo wado Ethiopia wax ku wadaan diidnay sii sheergareeya marka Ethiopia ninka hala sii daayo cabdi maxamed cumar qof kasta oo Soomaaliya ha u kaco waa nin Soomaaliyeed oo xiran waa gacan cadowga ku jira ninka ha loo kaco markii aanu banaanka la nimaadno cabdi si kasta ama aanu cafino ama aanu jiidjiidano ama aanu maxkamad geysano arrin Soomaali u taale noqonaysa oromo wax u yaala ma aha oromo cabdi maxamed cumar waxa weeye oromo afartii qof ee jigjeen idinkaga dhintay hadda u haysataan oo maxkamadda ku soo saarteen oo rabtaan in afarta qof maartay u dishaan oo u haysataan war anaga 400 baa maalin kasta naga dishaan 400 ma dhigmala iyagu miya bini aadan maaha miya ma xoolo ayagu 400 ma idin la brainaya marka dadka cagafta la soo dhacaysay marka dadka mindiyada iyo sidoo xun u dilaysan Facebook-yada aan ka daawan maxay ahaayeen dadkaas nacal ashidaan ku yaab ummadda Soomaaliyeed hala sii share gareeyo 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 waa codsi weeye fariinta odayaasha meel kasta ha gaarto Ethiopia ha dhacdo Soomaaliya ha noolaato gobolka Soomaali galbeed iyo ogaadeen iyo xurnimadooda ha heleen dadka horumar ha gaareen gumaysiga dulliga waxa la dul joogo Ilaahay ka dul qaado baan leenahay ummadda Soomaaliyeed Ilaahay qulubtooda ha isu soo dumo waxa 84 baa 1884 sidii loo kala qaybiyay bay ummadda Soomaaliyeed wali u kala qaybsan tahay ilaahayow dadka maxaa kula cadowga ah ee midiyaha suuqay dhibay xuduudaha noo kala sameeyay ilaahu naga qabo ilaahu qulubteeda isu soo dum saas taalena sii share gareeya hala kaco cabdi maxamed cumar loo kaco nin Soomaaliyeed weey hooyada Soomaaliyeed ooyeysay maxaa kula ilinteedu dhibicda ilintoo dhulka ku dhacda waa inay abirka go'do weey waa inay noo xisaabsan tahay weey waa inay noo xisaabsan tahay waa musharrici shirku reebay ninkii shirina u leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh